waxay aniga sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan u kala wareejiyo oo aan xilka u kala wareejiyo labada taliye. waa sunno ka mid ah sunnaha dowladnimo oo ah in uu xilku noqdo qorisu dhiib. dhammaanteen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u tahay sharaf inaynu hanaan suuban isugu wareejino xilka. taliyihii horena waxay u tahay sharaf in dhalinyaradii uu soo gardaadiyey xilka kala wareegayaan oo ay garbihiisa joogaan. waa geedkii uu beeray oo uu harsan doono. geesta kale taliyihii hore ciidamada qaranka Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa faahfaahin ka bixiyay muddadii uu xilka hayay waxyaabihii u qabsoomay. waxay noo noqotay taariikh raggii aan meesha geynay dad lagu tabci karo inaan nahayba iyo qiraannimokii sidii baa koorsooyinka loo noogu waday. koorsada hore waxa ka soo crash programka mujaahidiinta 320 ayaa noo galay dhowr difcadood oo saasa. koorsadan kale ee nimankan akademiga ahaa 76 baa noo galay ee kamid ahaayeen nimcaan iyo kamid ahaayeen 76 baa noo galay. abaanduulka hoose junior staff hoose 25 baa noo galay. abaanduulka dhexe ma waxaanu staff college waxa noo galay 25. war college waa Ethiopia unitaas waxaan ka hadlayaa ilaa hadda. war college kana 4 baa noo galay. war college ka oo Ethiopia nooga baxay. engineering ka waxa nooga soo baxay 45. farsamo yaqaan kala duwan oo noocyo kala duwan leh waxa nooga soo baxay 30. caafimaadkana dhakhaatiir sare oo master 4 baa nooga soo baxay. waagii hore waxaan lahayn hal dhakhtar. taliyaha cusub ee ciidamada qaranka Soomaaliland Nimcaan Yuusuf Gaxnuug ayaa sidoo kale tilmaamay howlaha shaqo ee uu qaban doono iyo halka uu yoolka iyo bartilmaameedka hawshiisu salka ku hayso. waxaanu insha Allah si degdeg ah u fulin doonaa amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahaa in ciidanka qaranka lagu tiro koobo muddo kooban si loo helo tiro sugan oo hawlgali karta. taasi waxay faa'iido u yeelan doontaa maamulka hufan iyo dib u dhiska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo loo kala saari doono ciidanka qaranka maxaa hawlgali kara maxaan hawlgali karin. taasi waxay u sahli doontaa ciidanka in si hufan loo maamulo habka nidaamka dalacsiinta habka hawlgabyada iyo dhammaan wixii maamul ee ku tacalluqa ciidanka. taasna insha Allah sida ugu dhaqsaha badan ajandaha ugu horeeya wuxuu noqon doonaa inaanu fulino amarkaas. ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa xubnaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaasaskooda nafhurnimadii ay u sameeyeen muddadii ay u shaqeynayeen qarankooda. waxaanu ballan qaadayaa aniga oo ka wakiila madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ahna taliyaha ciidamada qalabka sida in la daryeeli doono oo qaranku mudnaan gaar ah siin doono dhammaan xubnaha ciidanka qaranka iyo xaasaskoodaba intii awoodda qaranka uu noqdo. geesta kale munaasabadaasi waxa ka hadlay taliyihii hore ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeya gaas Ismaaciil Shaqale. ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan filayaa 30 sano inuu jirsaday amba 31 mid ahaan. taariikhda waxaan u malaynayaa nuskeed inuu taani taliye ka ahaa nuskeed. waxaan filayaa 15 sano amba 14 sano mid ahaan inuu taliye ka ahaa. qadar alla weeye meel fiicanna wuu soo gaadhsiiyey. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Maxamed Kaahin Axmed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliland Cabdulla Sandere, kuwaasi oo dhammaantoodba xusay baahida ciidanka qaranku u qabo in uu horumar ballaaran ku sii tallaabsado kuna ammaanay taliyaha xilka wareejinaya muddadii uu xilkaasi hayay hayaankii dheeraa
ee uu u soo maray ciidanka qaranka Somaliland horumarkiisa. marka aad iyo aad waxa muhiim ah maalinba qofkii fursad ay u soo baxdo ee Ilaahay u qadaro in la isbarbar taago taasay dawladnimadeenu dawlad ku noqonaysa taasay ummadnimadeenu ummad ku noqonaysa dawladuhu waa dhaxalka ay kala dhaxlayaan ee jiilba jiil u tabinayo ee group ka dhaxlayo ayay dawladuhu ku noqdaan macna ku yeeshaan waxaan filayaa inuu yahay taliyihii ugu dadayaraa ee taariikhda ugu horeeyay ciidanka dhowr iyo soddon sanadood la soo hagaayay waxaan aad ugu faraxsanahay inuu haysto taliyaal iyo khibrad fara badan oo halkan fadhiya